mataqaanaa awoodda maansada waa maxay? Si awoodda maansada ugu soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. Haddii aad nagu cusub tahay muuqaalka leegsan nagula soo dirsi aad nagu dhiirigeliso. Maansadu waxay soo bilaabatay qarniyo badan kumanaan sano ka hor, taasoo weligeedba qarni kasta lasoo jiri jirtay oo ilaa imikana socota. Maansooyinku way kala casriyaysan yihiin, laakiin maansadu ma baaba'do, weligeed ayaa leeyahay. Maansada imika waqti xaadirkan joogno oo isticmaalana waxaa ka mid ah heesaha, waayo heesuhu waxay ka yimaadaan maansada. Sidaas darteed wax kastoo suugaan ama xigmad kastoo ay maansadu soo marto wallaahi waqti xaadirkan waxay noqonaysaa mid cusub, laakiin maansadu ma maanguurto oo hadalkan xorkiisa ama suugaanta hadalka ama hadalka kiisa fiican ayaa loo yaqaanaa maanso, taasoo abwaan tiriyo ama hal-abuur tiriyo qofkaasoo wixii Ilaahay ku siiyay. Haddaba maansada awooddeedu waxay taabataa qulubta dadka, taasoo qofku markuu murugaysan yahay iyo qofku kolka uu faraxsan yahay lagu qiyaasi karo. Labada marxaladood ayaa maansada laga tiriyaa inta badan, iyo dagaalka iyo geesinimada iyo marka xaaladahu ay jiraan. Sidaas darteed maansada lagama tiriyo keliya nabadda, waqti dhan kastoo nolosha ka mid ah waa laga tiri jiray, ilaa iyo haatan way socotaa maansadu, waayo waata bulshada isku haysa sababo badan awgeed, taasoo si toos ah u taabanaysa qulubta dadka. Haddaba adiga dhankaaga maxay kula tahay maansadu? Maxaase ku qiyaasi lahayd? Nagula wadaag barta commentiga si aan halkaa uga aragno fikradaada ama fikradaada. Haddaba haddii aad halkan noo soo gaadhay, waxaan kaa codsan lahaa inaad muuqaalka like noo saarto, naguna dhiirigeliso sidaas subscribe noo saarto. Annaguna waxaan idin ballan qaadanaynaa inaan muuqaalada idiin soo badin doono kuwa suugaanta iyo dhaqanka iyo maansada ku saabsan. Haddaba halkan ayuu muuqaalkeenu u dhow yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.